Manchester United ayaa doonaysa in Bayern Munich ay siiso Antonio Martial iyo lacag si ay u soo qaataan Roberto Lewandowski. Weeraryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa laga doonayaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Kooxda kubadda cagta Manchester ayaa rabta sidii ay ku soo qaadan lahayd xidigan. Dhanka kale Chelsea ayaa ka mid ah liiska kooxaha doonaya inay helaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Roberto Lewandowski. Kabtanka xulka qaranka dalka Poland ayaa raba inuu arko xifaaltanka iyo loolanka horyaalka Premier League, sidaa darteed wuxuu fiirin doonaa kooxda wadahadalada ugu macquulsan ee la furi karaan. Bayern Munich ayaa ka gaabsanaysa inay iibiso xidigan iyadoo dhawaan uu sheegay tababarahooda cusub ee Kovacic in ciyaaryahankan uusan iibahayn, balse wakiilka xidigan iyo ciyaaryahankaba dhag jalaq uma siinayaan hadalada ka soo yeeraya kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Waxay dhageysanayaan dalabyada ka imaanaya kooxaha doonaya xidiga. Sidaa darteed kooxda kubadda cagta ee Manchester ayaa hadda doonaysa in arinta Martial ay kaga faa'iideysato soo qaadashada xidiga lagu magacaabo Roberto Lewandowski. Waad ku mahadsantahay daawashada videogan. Fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe. Mahadsanid.